awrtii iyo gaadiidkii ay wateen iyo safarkaasi maadaama de sida loo wada xidhiidhaa sidan maanta ay u fududay ahayn way isweydaarteen oo way ka tageen muddo kadib wuxuu nabigu ka war helay inay soo noqonayaan inay soo jeedaan ay soo noqdeen safarkii uu soo jeestuu soo noqday safaraad u ballaadhan oo uu hogaaminayo markii dambe waa islaamoo saxaabi buu ahaa radia allahu canhu ee waqtigaas abu sufyaan 40 nin meelaha ilaa dhowr iyo 30 nin baa waday waana safar hanti badani saaran tahay waxaa lagu qiyaasaa 50,000 oo diinaar hanti abaa saarayd oo maanta 200,000 iyo siyaada u dhigmaysa hanti intaa leeg bay wadeen dabadeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam warkaa markuu helay ayaa si yaroo degdeg oo kadisa ah ayaa wuxuu ugu sheegay saxaabadii magaalada gudaheeda joogtay dabadeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ciddii gaadiidkiisu hadda taagan yu diyaarkayuun baan raacay meelaha miyad iyo duleedka magaalada xataa qofka gaadiidkiisu joogana raaci maayo wuxuu isku tabantaabiyay nabigu sallallahu alayhi wasallam 312 saxaabi oo rag badan xataa ka maqan yihiin dabadeetana sidaasay ku baxeen halkan badar ee dagaalku ka dhici doona marka waa jidka safarka shaam ka yimaada uu soo maro ee maka ku socda bartaasuu nabigu ku soo eekeeyay calayhi salaatu wassalaam isagoo wata 312 riwaayaadka qaar muslim oo kale waxay sheegayaan 319 inay gaadhayeen ilaa nabiga marka lagu daro sallallahu alayhi wasallam aqlabiyadu waxay haayeen ansaartii magaalada deganeed oo 240 bay ku dhawaayeen 260 waxay haayeen meelahaas muhaajiriintii waliba qoyska waxa weey reer khasraj oo magaalada gudaheeda dadkii u badnaaya ayaa 170 kamida ciidankaas ay ahaayeen xagga awoodda iyo ciidanka marka la eego iyo adadkaanta aws iyo khasraj aws ba awood badnayd laakiin magaalada deegaanka magaalada lagaga badnaa sidaa daraadeed intaasuu nabigu la baxay calayhi salaatu wassalaam nabigu wuxuu qorsheeyay maamulkii dawladnimo systemkii si uu sii shaqeeyo magaaladii Barasaab buu sii magacaabay iyo de qof madaxweyne ka sii ahaada oo arrimaha dawladnimo iyo maamul sii dhameeya waxaanu ka dhigay nabigu calayhi salaatu wassalaam saxaabigii la oran jiray Abu Lubaabata ibn Abdul Munzir salaadii iyo xaqii cibaadaadkii arrimaha diintana wuxuu xil saaray ibn Maktum saxaabigii la oran jiray muadinka nabiga ahaa calayhi salaatu wassalaam saxaabadaasi ama nabigu calayhi salaatu wassalaam maadaama xaalad degdeg ay ahayd saxaabaduna iskaba hayn yaraayeen xagga quwada iyo cataadka marka la eego iyo saanada wax badan lama sidan inta ugu badan la sheegal waxa la sheegaa technico oo waxay wateen 2 faras oo Miqdaad ibn al-Aswad saxaabigii la oran jiray iyo Zubayr ibn al-Awwam baa kala watay xagga waxa weeyaan gaadiidka la raacayana 70 neef oo geela ayaa la watay oo la raacayo marka qof walba 70 ka neef saddex nin baa maaragtay loo wada fuulayo kolba qayb ay fuulaysay qaybta kalena ay lugeynayso xaaladda adag ee xataa sanad yarida ayay ku baxeen nabiga iyo saxaabada calayhi salaatu wassalaam nabigu calayhi salaatu wassalaam khidadii ciidankii buu kala fariisiyay qaybuu ka dhigay waxa uu qaybiyay muhaajiriin iyo ansaar muhaajiriintii waxa uu calanka ugu dhiibay oo uu hogaanka ugu dhiibay Ali ibn Abi Talib ansaartiina Sa'd ibn Mu'adh saxaabigii la oran jiray buu gacanta u galay si guudna calanka guud ee muslimiintana wuxuu gacanta u galiyay saxaabigii Mus'ab ibn Umayr isaguna nabigu calayhi salaatu wassalaam taliska guud buu de maamulkiisa ahaa ciidankii buu kala dambaysiyo guutooyin buu u fadhiisiyay habkii casriga ahaa ee waaga la isticmaali jiray ilaa haddana bad lagu dhaqmo
oo ciidanka midigta Subayr ibn al-Awwam buu dhiibo tiknikadiisii wata ciidanka bidixdana wuxuu u dhiibay Miqdaad ibn al-Aswad oo isaguna tiknikadiisii ku horkacaya xagga dambe iyo iska soo raacinta ciidanka xagga dambe wuxuu u dhiibay Qays ibn Abi Sa'sa'a nabiguna calayhi salaatu wasalaam de bartankii buu ku jiray oo taliskii sidaas ay ku soo baxeen nabiga iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay ku soo ekeeyeen Badar marka ay u soo dhawaadeen Badar meelaha meel la yiraahdo Safra markay marayaan ayuu nabigu wuxuu diray sahan ka warkeena safarkii iyo halku maraya iyo hawlahaas Basbas ibn Amr al-Juhani iyo Adi ibn Abi Zughba al-Juhani saxaabiga la yiraahdo isku reera ayuu labadaas nabigu diray oo shaqada ku wanaagsanaa si ay warka u keenaan nabigu calayhi salaatu wasalaam halkii buu iskaga sugay isagoo warsuga ah Abu Sufyaan waa nin aad u feejig nin daman maaha waa nin og hantida uu sida intay leegtay ciidanka wadana inuu tiro yar yahay mar walba sahankiisa iyo ila wareedada uu adeegsanaya aad bay u tiro badan waxaana uu ogsoon yahay dariiqan uu marayaa dariiq khatar badan oo mid qabiil iyo mid waxa weeye tuug iyo mid nabiga calayhi salaatu wasalaam ay sahyeen intuba ay maaragtay ku hareereysay waxa uu aad u kordhiyay markuu xuduudaha soo galay Madiina Maka wuxuu aad u kordhiyay cidda soo baaraysa dariiqa ka baaraysa qodax tiraysa dabadeetana istikhbaaraadkii iyo ila wareedadii waxay u sheegeen inuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa ay soo kicitimeen safarkana ay ku xisaabtameen ay soo socdaan Abu Sufyaan markiiba qayla dhaan buu diray Damdam ibn Amr al-Ghifari nin la yiraahdo dhul mareena ayuu markiiba karaystay intuu lacag siiyay buu yiri nimankii Quraysheed go'a u tuur marada u tuuro ka soo kacde hantidaana hal nin mooyaane Quraysh siday u dhan yihiin hantida way wada lahayn ninba waxba kaga jiray deetana ninkii waa isku sii daayay magaaladii Maka qayla dhaan buu isla dhex taagayo waliba suurada iyo qaabka ugu cajiibsan buu u dhigay gaadiidku watay buu sanka ka jaray mariyihii buu jeexay af waa uubatay af labadii buu yeedhay xoolihiinii la qaaday inaad ku gaari doontaan u malayn maayo waar ka soo kaca gurmad soo diray degdega nimankii reer Maka oo de kibirka iyo cuqdada nabiga uu qabaan calayhi salaatu wasalaam la garanayo ayaa si degdega ayay u soo baxeen guriyihii reer Maka wuxuu noqday raggii joogay nin taban taabinaya iyo nin ordayo soo baxayuun bay noqdeen ciidan 1300 iyo googo ah oo waxa weeyaan saanad fara badan wata 600 oo dirac bay wateen ama gaashaankii laga xidhanayay seefta 200 oo waxa weeyaan farasna way wateen ama 100 faras meelaha gaadiidkay saaran yihiinna dee hanti aad u fara badan bay ahayd madaxdii Quraysheed guntay ka soo go'een oo nin kama hadhin waxa la sheegay Abu Lahab alayhi min Allah ma yastahiq ayaa ka hadhay ninkaasina nin buu soo diray waliba sidaas ay ku soo baxeen xaqii dhaqaalaha iyo ciidan fara badan bay la saaray 9 nin oo tujaara oo madaxdii Quraysheeda oo Abu Jahl kamid yahay oo uu kamid yahay Suhayl ibn Amr oo uu kamid yahay Adur Rabiidankeeda la Hakim ibn Hizam ayaa isku qoray oo yiri annagu waxay ragaasi cunayaan iyo waxay cabayaan dhakadayada weeye maalinkiiba nin kasta wuxuu qalay 10 neef oo geel abu ciidanka uu qalay Abu Jahl baana fircoon hadhihi al-umma ayaa ku bilaabay oo markiiba isagu loogay oo 10kiisii ku bilaabay waa ka Ilaahay ku soo dejiyay jalla wa ala alladheena kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون
waa xoolo ku soo noqonayo oo dhibaata un ay kaga imanaysa baa ilaahay leeyahay jalla wacala hantida ay bixinay xoogaa markay soo socdeen baa reer quraysheed waxay xasuusteen magaaladii way soo mariyeenoo cid kagama imane nimankaysayeen ee reer banu bakar bilaa xagga dambe idinkaga dhuftaan meel kale laga tabantaabinayaae suldaankii reer banu kinaana ee suraaqata bnu malik ibnu jucshum almudlaji la odhan jiray ayaa ibliiskii isku soo labahayba isagoo suraaqada yaqaaneen u eegays-hayeen ayuu ibliisu yimid nimankii markaasaa wuxuu idhi innii jaarun lakum taaha ka biqina in maanta nabad baa inaga dhaxaysa kol haddaad caduwu sadiiquk baa la yidhi cadowgii waa saaxiibkaa kol haddaad nebi maxamed la diriiraysaan waa cadow inaga dhaxeeya maanta xagga iyaga waxba idinkaga iman maayaan waabuu la socday oo dagaalgelin ayaabuu ka dhinac bilaabayba iyaguna suraaqay u haystaan sayidu bani kinaana waana ibliiskiiba weeye ibliiska laftiisii oo la socda weeyaba nimanka ciidankii waa soo dhaqaaqay ayagoo kibirka iyo tookha iyo xaaladday ku sugayiin dee ilaahay qur-aankiisa ku sheegay bataran wari'aa'a annaas wayasuduuna can sabiili illah ayay soo baxeen waxay soo socdaanba waxay yimaadeen meesha la yidhaahdo juxfa ee miiqaadyada laga sii xarmado ka mid a halkaa markay marayaan baa fariini soo dhacday ka timi abu sufyaan oo labaad oo leh war waan la baxsaday hadduu rabbi iidankeeda leeyahay safarkii hantidiina way idiin badbaaday xoolihiina aad u soo baxdeene xoolihiinina badbaadee iska soo noqda risaalada iyo warkaas ayaa u soo dhacay nimankii oo siduu warka ku helay abu sufyaan markaa hore dee dhegadhegaynun bay ahayd markuu beder u soo dhow yahay beder uu dul yimi ayuu nin odayo oo majdiy ibna camre la yidhaahda buu hela markaasuu yihi war bal waxaad iiga warantaa ciidankii madiine ka soo baxay warkooda keen markaasuu yihi ni anigu wax bala-ah iyo waxaan garan waayo oo deegaankan aan ku arkay ma jiro haddiise laga tegi waayo taaggaa halkaa ka muuqda laba nin baa gaadiid halkaa fadhiisiiyey labadaa nin maan garanayn abu sufyaan markiiba waa cararay oo labadii nin barti gaadiidka fadhiisiiyeen buu ihi tusoo uu eegay saaladii geeluu soo qaado wuu kala jabiyey dabadeetana laftii magaalada madiina timirta ayaa kaga soo booday markaasuu yihi wallaahi ina haadihi la calaa'ifu yathriba ibli yathriba wallaahi geelaasi waa geel ka yimi waxa weeye yathrib iyo magaaladii madiina ciidankii meesha waa joogaa markiiba wuxuu waxa weeyaan u baydhay dariiqaan ahayn xaggaa badda cas iyo xeeligeeda ayuu uu mariyey safarkii saasuu markaa isagu ku badbaaday nimankii risaaladii warkii markuu soo gaadhay ee la yidhi dee waanu badbaadnay waa la iskhilaafay ragga qaarkood waxay soo jeediyeen war waynu iska noqonayna gaar ahaan dee qabaa'il baa loo socdaaye nimankii waxa weeyaan reer banu zuhre la odhan jiray iyo waxay yidhahdeen war annagu da xoolaha iyagaan difaacayni xoolaha iyaga hadday badbaadeen maxaa dagaal nagu wataa markay ku qancin kari waayeen qolooyinkii kale 300 oo reer banu zuhre baa dib u saga noqday oo dagaalkii ayagu may gelin kun baa soo hadhay kunkii kale waxa isku tabantaabiyey nin dee socda oo taliyana ah waa abu jahl waa fircoonkii ummadda tan waxa uu qorsheeyuu yidhi war soo may xoolii badbaadin kol hadday xoolii badbaadeen noqon mayno beder baynu tegayna 3 habeen baynu ku hilib cunaynaa halkaa habluuna halkaasay inoogu heesayaan khamrigana halkaasaynu ku cabbaynaa waa inaynu carab isbarro waxaynu nahay oo laga sheekeeyo halkaa ciidankii reer quraysheed waa halkay degeen berigii markaasaynu iska noqonayna
tiisii baa lagu qanco la qaatay dabadeetana ayagu sidaasay ku soo jihaysteen ciidankii muslimiintu ayaga laftoodu dee dhinacooday ka diyaar garoobayaan nabigu wuu soo dhaafay halkii safraa wuxuu soo waayo warkii buu helay in ay dhaafeen safarku u dhaafay markuu dufraan maraya ayuu warka helay nabigu sallallahu alayhi wasallam ila marka hore waxa loo socday xoolahana loo socday xoolii kala day baxsadeen oo qorshihii lagu soo kaxeeyay saxaabadu ee lagu heshiiska ahaa kala duus bedelay waa in tala la isula noqdo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu saadaaliyay iyo nimankii dagaal yaqaanka ahaa warkii reer quraysheedna way heleen iyo ciidankii soo baxay ciidanka soo baxay inaanay istaagay magaalada madiinana khatar bay ku hayaan waxa weeye badarna deynagoo soo sii soconaa bay naga daba imanayaan maxaynu ka yeelnaa nabigu gaashaandhigii buu isugu yeedhay alla wixii taladaa lahaa oo dhan buu isugu yeedhay taluu geliyay amarku muu rogin dagaal gala uune nabigu taluu geliyay sida dhaqankiisu ah waa amruhum shuuraa baynahum waxa la siiyay oo xogtii baa bartaa lagu sheegay iyadoo dhammaystiran waxa ka horeeya saxaabada iyo nabiga iyo waxa iman kara mustaqbalkii daraasad dhammaystiran baa la akhriyay marka wuxuu ka war sugayaa raggan dee sibaa lagu soo saaray xaaladan cusub ee kale siday u wajahaan saddex nin baa iska daba maro Umar ibn Khattab laho Miqdaad ibn Amr laho ayaa waxay iska daba mareen Abu Bakar laho inay ku taageeraan haday muhaajiriin inay ku taageeraan nabiga dagaalka kaleey salaatu wasalaam erayadii maalinka guntamay waxa kamid ahaa Miqdaad ibn Amr eraygiisa imd lima araka Allah fa nahnu ma'ak wallahi la naqulu laka kama qalat banu Israa'ila li Musa اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما قاتلون أنه أران ما إن سيدي رب بنو إسرائيل نبي موسى كتري أديك يا رب قاعد تقالما ونسكفر ليه نايه وحن كلنا أديك يا رب قاعد تقالما أنه معنا أيامنا نبي صلى الله عليه وسلم ويسكوه بالمهاجرين لكن عدو دكته وقرد إياه وعيدا كعدة وبضنا وأنصار ده تنا مركي أوركودا لما يستين مهاجرينتي أيو النبي يقول أشيروا إلي عباد الله وهي ورتلك كان تلذ كردية سعد بن معاذ با مركي بنين فريد أبو هاي فهمي مركاسولي يا رسول الله أنا قد نوتشي ده مركاسولي ها أدي قوانو كرمين النبي محمد وحضلت مين حقي نوانو قرة waxaa soo dhanna waxaanu kugu siinay heshiis iyo daaco wax alla waxa doonaysa samee macaagan aad buu nabigu arrinka ugu farxay go'aanka geesinimada leh ee muhaajiriin iyo ansaar isku raaceen go'aan buu markaa nabigu qaatay in dagaalkii la galo dabadeetana lagu socdo way soo socdeen nabiga iyo saxaabadu ilaa ay soo degeen badar waxa mara wabi طريق المدينة لقصوا قلا أيه كصفر وبيان أورانا وحمرة وحوي الضح أيه كصفر است إذا أنتم بالعدوة الدنيا العدوة الدنيا وكرنت أولو مدينة لو تشيله وهم بالعدوة القصوى وكرنت كفق مدينة حق ما كحكته أيه قاردنا صفر است هل كاسو النبي عليه الصلاة والسلام صحابة إيمان marka barkeeba waxa la diray ciidankii sahanka ahaa cid kale looma dirin Abu Bakr iyo nabiga baxay alayhi salaatu wasalaam inay soo sahamiyaan bidoonayeen hawlaha dabadeetana waxay yimaadeen nin odaya oo meesha jooga ay u yimaadeen odaya shacabbeeda deetana waa sunna saqeen waxay yiraahdeen ka waran bal ciidamadan la leeyahay badar bay isku haleelayaan Madiina Makka ka kala socda dabadeetana نوين بوهايو وحيوري وبلورتياتي انتانا ندين ورمين بلورتياتي تبدا تنوحي كوي راهدين مركز نو شيكتان كو شيك وحيوري نيو عيدا بالا لي مكو مدينة وكسو بحي مالين هبلاي وكسو بحالي هدو مالين هبلاي كسو بحي
maanta meel heblaayu maray karinta dabadeedu maanta maray sama ogi nin de wuxuu qiyaasay inuu waligii de intan ka soo lugayn jiray oo garanaya laba lugoodlu intuu soconay ciidanka maka ka soo baxayna meel heblaayu soo baxay imaka wuxuu marayaa halka haday sidaa tahay sidii baanay u dhacdo labada qoloba baftu ku sheegay ayay marayaan dabadeetana markaas uu waayay sukay sheega markaas uu nabigu uri alayhi salaatu wasalaam nahnu min ma annagu reer biyood baanu nahay marka reer biyoodkan carabi waxay taqaanaa maa'ul ciraaq biyaha reer ciraaq iyadoo lagu abtirsado nabiguna wuxuu u jeedaa de biyo taran baanu ka nimiyo halkaas aanu ka dhalan sidii buu nabigu kaga baxo waxa la yiraahdaa kinaayo isagoo odaygiis weydiinaya man ma mimma al-ciraaq wa reer biyood wa nimanku dheerayeen halkan maxay ka soo dooneen ayuu iska tegay dabadeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu warka helay in nimanka ay soo dhawaadeen oo ay de buurahan dabadoodaba fadhiyaan ayuu kordhiyay ciidamada sahanka ah dhinac walba loo diray ilaa asbaabta in la qaataa loo baahan yahay wuxuu diray Ali ibn Abi Talib iyo Zubayr ibn al-Awwam iyo Sa'd ibn Abi Waqqas buu nabigu diray alayhi salatu wassalaam oo bal inta ceelasha Badr iyo ku wareegay dhab markiiba ceelasha waxay ku qabteen inamo waxa weeyaan dhaaminayo ciidankii gaalada u dhaaminay laba yar bay ahaayeen oo soo dhufteen nabiga u keeneen waa garaaceen sheega xageed ka timaadeen maxaa tihiin markaas ilaa wallahi inama yar u dhaaminayaanu nahay waxa weeyaan ciidanka Quraysheed saxaabadu markaa waxay jeclaayeen inaanay ciidan is arage inay is arkaan hantida iyo dhaqaalaha ilaahay baa quraankiisa ku sheegay وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم waxaad jeclaysanayeen labada ciidan ka aan awood badan lahayn hantida sida inaad ishashaan marka waxay wali rajo ka qabeen saxaabadu inuu Abu Sufyaan wali meesha ku jiro wali aanu gudbin markaas ay yiraahdeen marka xagga bay garaac u kordhiyeen war miyaydaan ahayn ciidankii Abu Sufyaan deetana markii dambe ilaa maxbuusku moogta kolba luuqada lagu la hadlo buu ku hadlay waliga nin maxbuusa waxba laga ma dhageysto waxa uu ku hadlay lama rumaysto waa sidan doonaya uunan u garaacayo buu i raacaya dadse dhagada looga daayo ma markaas ilaa wallahi ciidanka waxaanu iska nahay waxa weey Abu Sufyaan baan la socono ciidankiisii baan saxaabadu markaa way daayeen inay wareystaan bay dooneen nabigu salaadii buu ka baxay alayhi salaatu wasalaam markaas wuxuu yiri markay run idin sheegaana waad garaacaysaa markay been idin sheegaana waad deenaysan wallahi runtood weeyaano ciidankay u dhaaminayeen ha ku habsaamina meesha Abu Sufyaan mari maaye dabadeetana nabigu labadii yaraabu wareystay markaasuu ku yiri xagay ciidankii degayay markaasuu yiri bacaadka ka dambeeya buurta ama karinta dambe dabadeeda bacaadkaas ay degan yihiin ciidanku waa intee tiradoodu way farabadayiin bidabdi intee bayeen tirada noo sheega wallahi ma garanayna laakiin waa farabaday imisa neef bay maalinkii cunaan markaasuu ilaaden 9 ilaa 10 neef oo geela markaasuu nabigu ciidanku waa kun weey oo neefkiiba 100 baa uu xisaabiyay nabigu alayhi salaatu wasalaam yaa la socda ciidankan ashraaf quraysh madaxdii quraysheed oo dhan yaa kamida Utba kamida oo Shayba kamida labadii ibn Rabiico Abu al-Bukhtari ibn Hisham ba kamida Hakim ibn Hizam ba kamida Nawfal ibn Khuwaylid ba kamida Harith ibn Nawfal ba kamida Du'ayma kamida Nadr ibn al-Harith ba kamida Sam'at ibn al-Aswad ba kamida ya Abu Jahl ibn Hisham ba kamida Ubay ibn Khalaf ba kamida raggaasay tiriyeen markaas nabigu wuxuu yiri hadii Makkah qad alqat ilaykum aflad kabidha wallahi Makkah maanta beerkeedii oo soconaya idin haba kama harin maanta nabigu sallallahu alayhi wasallam habeenkii halkii buu isaga hoyday habeen jumcaad baa markaa la galay saxaabadii oo safar iyo daalo roob baa ilaahay meeshii ku gooyay roobkaasi sida ilaahay quraanka ku sheegay saxaabada guul buu ahaa kalsooni qalbiga bay saxaabada heleen daalkii buu ka tira
biyo iyo maaragtay waxay wax ay cabaan buu noqday ka faa'iideystaan meeshoo raqas iyo boor meedhan ahayd buu ka naba dhagaxii meeshu waa meel jay iyo dhagax yaryar bay leedahay jaygaa yaryar markaa haddaanu roob heli lahayn cagtuba may qabateen cagtaa si fiican ugu qabatay roob weyn oo meesha qaribo oo dee daadad ku furana muu noqon gaaladana wuxuu ku noqday ciqaabo waabay dhaqaaqi kari waayeen xaggooda uu ku go'ay roob dabadeetana gaadiid baa u socon waayey ayagii waxa weeyaan meelahaasii kala wada jirsadeen qorshii dagaal ee habeenkaa ay khidadayn laayeen oo dhan baa ka kala wada lumay sidaasaa deetana waagi ku baryay waa maalin jumca 17 Ramadaan waa maantoo kale inuu taagannahay xagga taariikhaha dabadeetana nabigu sallallahu alayhi wasallam subaxiiba wuxuu bilaabay inuu qorshihii istiraatiijiyadeed ee dagaalka lagu gali lahaa in la sameeyo dabadeetana nabigu soo guuray wuxuu ku soo dhawaaday ceelashii generaal khabiir askari ahaa oo saxaabi ahaa al-Hubaab ibn al-Mundhir radiyallahu anhu ayaa markiiba farsama u muuqato wuxuu yaa rasuulallah halkan ma tala allaad ku degtay bimaana wax ilaahay kugu soo dajiyay oo aan la dhaafayn baa jira mise waa khidad ma waa khidad buu nabi allah anigu tala ahaan waxaan soo jeedinayaa ceelasha aynu xagga shisha ka maray cadawgu inaga xig dabadeetana biyaha wixii rasmiyana ay meel ku kaydsanno ceelashana nimanka aynu ka aasno nimanku ha oomaano omasku hadilo wallahi waa fikrad wanaagsan buu nabigu ratiiba lagu dhaqaaqo sidii baa la yeelay sidaas ayadoo xaaladu taagan tahay ayaa haddana waxa soo dhacay fikrad kale buu soo riday Sa'd ibn Mu'aad wuxuu yaa rasuulallah talis baynu u baahan taliskii baynu sameeynaa meesha goobta taageed ciidanka iyo maamulka oo dhan ka wadi karto ayaanu kaaga sameynaynaa talis tiina waa la waafaqo halkaas nabiga talis looga sameeyay ciidan guuto uu hogaaminayay Sa'd ibn Mu'aad baana nabiga ilaalinaysay Abu Bakar iyo nabiguna halkaas ay ku jireen qorshaha dagaalka iyo nidaamka ayay day ku dajinayeen halkaas baa nabigu sallallahu alayhi wasallam uu fariistay habeennimadii waxa la guda galay ciidankii in la qorsheeyo ciidankii la dardar geliyo hadduu rabbi waa 300 iyo 1000 nin marka waxay u baahan tahay macnawiyaadkooda dadkan in kor loo qaado ayaa la doonay muslimiintu xaggay iska qorsheeyeen ay ka diyaarsanaayeen ilaahay gaaladii wuxuu ku riday khilaaf iyo balaayo meeran subaxii markii waa bariisteen ayaa khilaaf ku bilaabmay horta waxay soo diireen Umayr ibn Wahab saxaabi la oran jiro waqtiga gaar ahaa oo nin cajiib ahaayo aad u maskax badan Umayr ibn Wahab al-Jumahi ayaa la yiraahdo balarta dhimankan sahan ka soo qaado sawir qaad soo samee deetana uu soo cararayo hal mar de waa chance la waa بين الحياة والموت هل مربو سدا انتو سدا قنطالك او مري ايو ايشا كبوحسده مركز سوري هورتا عيدنك waa 300 iyo googo waxba ma dheera balaan idinka hubiya buu horta ciidan kaydi inuu jiro iyo gurmade ii kaadiyo hadana uu wareego jihooyinkii oo dhan buu soo maray markaas uu wallahi inaan nafar ka dambeey laakiin anigu waxaan soo arkay nimankii Madiino oo sida waxa weeyaan mawd geeri sida nimankaasi waa mitid geeriyun baanay sidaan ilmaade real Madiino naga day dabadeetana lagama yeelin halkii adigu khilaaf baa ka yimi qolba qolaatira waa ninkii Abu Jahal oo meesha ku baxaya ayaa nimanka hogaaminayo ku horkaaja kolba dhinac bay ka boodaa adigu waqtigii dambe wuxuu ku guuleystay ninkii Abu Jahal inuu ciidankii isku soo celiyo dagaalka la galo sidii baa deetana lagu galay dagaalkii labadii ciidan ayaa waxa weeyaan is arkay markuu nabigu ciidankii arkay baa Ilaahay buu bariyay wuxuu Ilaahayow waa taa Quraysh faan iyo faataadhug bay halkaa u timi Ilaahay iyo rasuulba way khilaafta Ilaahay oo ballankii aad ila gashay guusha ahaa Ilaahu raacay dabadeetana nabigu wuxuu arkay ninkii Utbah ibn Rabi'a oo ragga ugu hor dhiman doona ah
oo khilaafkan gudahooda ka jirayna raggii hurinayay lahaa war meesha ay nagu dilinayeen maadeerayaal naga keena tolis dilay baynu noqonaynaa ninkani waa nin nala dhashay waxba ka faa'iidi mayna carabta kala hay sarkaane inaga keena ayaa nabigu arko markaasuu yidhi ninka awrka casaaran hadday taladiisa qaadan laayeen way nimankaasi dhawaan laayeen buu nabigu sallallahu alayhi wasallam dabadeetana sufuuftii buu nabigu guda galay ciidankii inuu habeeyo inuu qorsheeyo ilaan dagaalkii ayaa hadda bilaabmaya ama ruu nabigu soo rogay inay difaac mooyaan aanay weerarba qaadin ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam soo jeediyay hubka waxa weeye inaan lagu garin nimanka markastoo ciidan badan idinku soo dhaqaaqo unaca rasaasta iyo aduu rabiidankeeda leeyahay rasaasta halka leebka ugu jiray waagaas leebka unaca iyo warmaha haddii ay idinku soo dhawaadaana seefa ula baxa amarada noocaas iyo nabigu soo jeediyay kaleey salaatu wasalaam ninkii Abu Jahl halkanuu waxa weeye qowlalada ka xumbeeyay markaas wuxuu leeyahay ilaahay oo iskaaya si nimanka oo maanta uunanu kala dhamaan ilaahay waa isiisiyo way kala dhamaan doona saacadii koobaad ba nin aad u akhlaaq xumaayo al-Aswad ibn Abd al-Asad al-Makhzumi la oran jiro aad u faan badnaa ayaa intuu isu soo xambabuuray leen way waday ayaa wuxuu ilaahay waxaan ballan kula galay inaan ceelkooda ka dambeeyay ka cabo ama aan soo dumiye ama aan ku dul dhinto ama aan markan ka soo noqdo aan dhinto waa isu soo xambabuuray intaanu gaadhin buu Xamsa hela radiyallahu anhu asadkii ilaahay baa helo boqontaasuu jara ballankiisa ma ilaabin nimankan carabtu ma ogtay niman aad u geesisan oo dhiiran bay ahaay ninka dhan ee lugtuba kala gooday ismuu xasuusane wuxuu xasuusay dhaartiisii waa gurgurtay wuxuu socdo markuu ceelkii yarula jiro iyo mid labaad oo ka soo kicin buu celiyay Xamsa sidaasuu deetana goolkii koobaad nimanka lagaga dhaliyay waxa soo booday mubaarasa loo soo bixi jiray waagii hore tijaabo koobaad nooc tijaabo ah mubaarasadii waxa soo booday saddex nin oo isdhaloo laba walaalayeen oo madaxdii Quraysheeda Utba iyo Shayba ilma Rabiica iyo Waliid oo Utba dhalay baa soo booday niman geesiyaalo de gaalnimo baa reebtay niman cajaayib badan bay ahaayeenoo hadday islaam ilaahay islaamka wuxuu tari lahaa waa soo xaqii hore yimaadana waxay yiraahdeen yaa noo soo baxay saddexna oo ansaara loo saaray Muawid iyo waxa la Auf iyo Muawid oo ilma Xaarisa oo iyadoodna Cafra ay ahayd iyo saxaabigii la oran jiray Abdullah ibn Rawaaha gabyaaga ah saddexdaas soo booday markaas ay yiraahdeen wallahi niman karaamalaati laakiin anagu ilmaadeerada ayaanu rabnaa raalle ahaan nimankii muhaajiriin ay ilmaadeerada soo baxaan waxa soo booday markaa Xamsa ibn Abd al-Muttalib iyo Ali ibn Abi Talib iyo Ubayda ayaa soo booday dabadeetana markiiba waxa weeyaan Ubayda wuxuu ku bilaabay ninkii ugu weynaa meeshuu ahaa Utba ibn Rabiica Xamsana dhulka ulama dhicin ninkii Shayba Alina Waliid buu maaragtay ku quraacada halka ayaa labadaas markiiba saacadiiba seeftaba muu soo rogan laakiin waxa isweydaarsado mid walba dhaawac uu ka kala gaarsiiyay Ubayda iyo Utba ibn Rabiica labadii saxaabiye kala intay degdeg u qaadeen bay dhameystireen ninkii kale Utbana saddexdaasina halkaas kaga dhintay nimankii waa sii socdaan wax soo noqonayaba malaba waxoogaa warwara ayaa bilaabmay dabadeetana siirigu ugu dhuftay Abu Jahl markaasuu wuxuu yiri gacan saara hal mar nimanka wuxuu waa 300 kumbaatina gacan saara dabeetana sidaa ayuu dagaalkii ku bilaabay saxaabadu amarkii bay qabaan inaanay dagaal qaadin halkooda ay isku difaacaan noocii nabigu kula taliyay kaleey salaatu wasalaam ayay yeelaan nabiguna halkan uu ducays la taagay ayadu daroontii ilaahiga ahayd ayuu halkan kala dhacayaa nabi oo de ilaahay buu qayl dhaandirtay ilaahay buu baryay ilaahay oo kooxda yar maanta kama dambaysa islaam ilaahay oo hadaad halaagto arladan lagu caabudi maayo ilaahay oo waxadii ballan qaaday keen baryadaas sidoo uu waday Abu Bakar wuxuu leeyahay uu la joogayo
tal iskuul la joogo go'i baa nabiga ka dhacay saraba deetana markaasaan u qabto ayaan ku uri yaa rasuul allah intaasaa inagu filane ilaahayna in badan la hadashay u kaadi ilaahay amar wuxuu siiyey dee wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa hu wamaa hiya ilaa dikraa lilbashar amar ilaahay wuxuu siiyey samooyinka guutooyin fadhiyo dee malaa'iga ayuunbuu ilaahay amar siiyey dabadeetana nebigu waa soo nooc hurdo ka soo toosa ayuu u soo kacay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabadeetana markaasuu yihi abubakar ow bushaarayso ninkan miyaanad arkayn faraska waxa weeyaan ku gaashaaman waa jibriil oo ciidan hogaaminaya waa ka buurtaa isku taagay saxaabadu dee arki maayaana dee nebigunbay ka qaadanayaan warka dabadeetana dagaalkiibaa bilaabmay ilaahay baa dee ballan qaaday markaasuu nebigu soo kacay isagoo leh sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna dubur ciidankan waa la jebinayaa dabadoodana jeedinayaanoo nimankaasi way yaaci doonaan markaasuu nebigu erayo dagaalgelina ayuu bilaabay qorshihii hore ahaa isdifaacana waa bedelay amar wuxuu siiyey in ciidanku ay weerar qaadaan nimankii oo markaa intay dhowr jeer soo rogaal celiyeen dhowrkii jeerba la dhex qaaday oo la suqaareeyey oo dee farabadnaantay dee meesha ku hayaane nimanku aad u dhintay ayay saxaabadiioo dee nashaad haysaa ku bilaabeen markaasay galeen markaasay dhex qaadeen dee amaradii kalena waa socdaan iyo malaa'igta oo maalinkaa cajaa'ibta waxay saxaabadu ka warramayaan nin baanu eriyanaa buu ku leeyaho sidanu u daba soconnuunbay qoortu ka duushaawo mararka qaar baanu codod maqallaa iyadoo waxa weeyaan nin fardafuula la siinaya amaroo la leeyahay aqdim xayzuum waar ku dhufa xayzuumo amar ilaahay baa meeshan ka socda ilaahay wuu awoodaya inuu malaa'igunu diro laakiin dee magaca iyo guushiyo maamuusku wuxuu raacayo qallad baa kusoo dhacda la odhan lahaye dee saxaabadan muu raaceen marka nasri iyo guul bay u ahaayeen malaa'igtu iyo xoojin ayay u ahaayeen saxaabada laakiin cidday gaaladu arkayeen ee la dagaalamaysay dee waxay ahaayeenuun saxaabada balaa nimankii ku degtay oo heshay ninkii ibliis ahaa dee saxaabada waxaa leeyahay malaa'igta siglan buu ka bixinayaa isagu markuu arkay xaaladdu inay isbedeshay faraha ka baxday ayuu tow yidhi xaggaa iyo badda cas buu u cararo badduu ku dhaca markuu arkay dee meeshii inay isbedesho ciidamadii cirku ay soo dhaceen buusi meesha ha ku halaagsamayne iskaga carab wax laga dabaqa waa suraaqow ma ciidankii baad ugu dalbanaysaa ilaan suraaqay u haystaan oo ninkii reer kinaanay weli u haystaan dabadeetana nin baa ishortaagay oo qabtoo ninkii uu la kacay illa waa ibliiskaas sidii buu isagu ku baxsaduu ku tegay nimankii markiiba waxaa ku bilowgiiba guuldarradii ku bilaabantay way ku soo tartaawun way ku socotay janankii meesha haysto abujahal ahaay oo nin geesi ah ninkaa kufriga iyo gaalnimada mooyaane dee waa raggu nebigu lahaa allahuma aciza alislaama biaxad alcumarayn ilaahow labadaa cumar waa camar iyo cumare ilaahow labadaa midun ku ciseey ilaahay cumar binu khadaab buu islaamka ku ciseeyey geesinimadoodii midna abujahal buu ahaa ninkaasi nin geesiya buu ahaa ninkii waa gawskuu qaniinayo ciidankii wuxuu dhinacyada kolba dhinac bay ka yaacaan oo uu isu soo shamiyaa dee wax ilaahay jebinayo ilan ma hayn karaye isaga iyo koox yar bay noqotay waa lagu goobtay ciidan gaashaan oo adag baa isku xeeray janankii dhinac walba waa laga soo galay markaasaa lala kacay ninkii carab waxa weeyaan hor fadhiisan jiray ee ugu geesisanaa waxaa dilay laba inayn oo yaryar baa dilay oo carruura cawf iyo mucawid oo ilmo cafro oo ansaara ayaa warkiisay maqleen oo siday u daydeeyeen ayay meel geedagtiiya ka heleen oo waa ugu tuureen isagoo sii qaldhabaya warkiisana la sheegay oo la yidhi ninkii waa la dilay ninkii abujahal ahaa ayaa cabdillahi bn mascuud oo dee xaggooda maka marka la joogo aan wax weyn qorayn xagga ilaahayna wax weyn ka qoran oo dee saxaabiya ayaa dul yimi markaasaa
ويسكو تاغ halka qortu iskaga taagay oo war badan oo dhex maray kadib deetana markaas uu wallahi meel weyn baad maanta isku taagtay meel aanad cimriga gaari jirin ayaad maanta gaadhay ya yabna raa'iyat al-ghanam wariya ari jirow maanta meel adag baad isku taagtay deetana qortu ka jaray oo uu dhameystiray Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu warda sidaas oo Abu Jahl ku dhintay nabiga markii loo sheegay aad buu ugu farxay ninka waayo ninka maskaxda ka dambaysa dagaalka Quraysheed weey aad buu ugu farxay nabiga kaleey salaatu wasalaam isoo tusuu yiri markaas nabiga la dulgeeyay kaleey salaatu wasalaam markaas uu yiri hada fir'aun hadhihi al-umma ummad walba fir'aun bay leedahay fir'aankii ummadda nabi maxamed kanuuha waa ninka dhintay nabiga kaleey salaatu wasalaam maalinkaas ajaayib badan baa ka dhacday 24 maanta maxaynu ku sheegi karaa hal doorkii ama saraakiishii hadday ciidan noqotana saraakiil noqonayay hadday madaxnimo noqotana madax ahaa hadday noqoto waxa weeyaan awood iyo khibradna ugu khabiirsanaaba maalinka kaga dhintay meesha 24 kamid ah ayeen madaxdii Quraysheed dacwadan ka soo horjeeday ee dhigta dhiiga loo daray maalinka 7 waa la haabto gacmaha lagu dhigay 140 in alla intii kalena firxad bay afarta bayna jaho ay waxa weeyaan isdhacan biidiyeen ay u yaacay halkaana ilaahay subhanahu wa ta'ala guushi uu u ballan qaaday nabi maxamed iyo saxaabada ayuu ku raaciyay waxay nimankaasi hanti siteen waad garan kartaa ciidankaasi muxuu ku tala galaad soran kartaa taqriiban 5 maalmood oo kale meelahaas ay soo socdeen ilaa 5 maalmood 5 maalmood oo min ku dhufo bal waxa weeye 10 neef geela kaliya cunayaan baynu ka xisaabinayna hantida kale siteen ma waa konton ka way soo liqeen bal ugu yaraan konton kalo noqoshaana ugu da intay ku tala galeen inay joogaan oo 3 habeen ahaydna ugu da waa hadda inta waa markay yar xisaabada weynaa waa laga yaabaa hanti inta ka badan inay ku tala galeen xoolahay ay wateen kay saaraayeen 200 ee faras waxay la yaaceen mooyaane hub waxay haysteen waxa wixii halkaas laga dhigay muslimiintii fuqarada ahay waxa weeye qanjaha istaagay nin waliba isagoo dhowr neef oo geel ku soo hagaagay iyo hub iyo fardaba ayuu ka noqday barta markii horena 2 faras baa la soo galay ilaahay nasriga iyo gooshi dadka muslimiinta abu raay ajaayibta maalinka dhacay waxa kamid ah meesha waxa dagaalamaya muslim iyo gaal marka laga yimaado waxa dagaalamaya walad iyo waalidkii waxa dagaalamaya inan iyo abtigi waxa dagaalamaya 2 nin oo walaala Mus'ab ibn Umayr baa xaggan ka soo jeeda Abu Asiis ibn Umayr xaggan uu ka soo jeeda markaas waliba gacanta lagu dhigo la qabto oo muslimiintu qabteen isagoo gacan ku jira nin ree ansaareeda hadu maraynle wuxuu doonaba ha noqdee noo sii daawad adigu oran le Sooma isagoo gacan nin ansaare ugu jiro maxbuusa ayuu yiri bariyaa ninku yaanu ka baxsan hooyadiina waa ku oga hanti bay haysataa xoolaanu kaga qaadanaynaa yuuna ka baxsan buu Mus'ab ibn Umayr markaasuu ma taasaad ku talisay maanta markaasuu wariyaa dhageyso walaal lahayn ka ku hayaan anagu walaalan waxa meesha ku dagaalamay Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda al-Aas ibn Hisham ninkii loo oran jiray abtigii ahaa Ruma ayuu qudha ka jaray oo gaal ahaayo islaamka dhibiyo diinta abtigii ayuu ka beeri waayo markaas uu dhiibay aad bay u farabadan waqaa'icda maalinka kulmay ee meesha ka yimid Abu Bakar baa xaggan ka higaadinaya ku yaro uu dhalayo hantidiisii makana de maaragtay iskaga loo farayay uga yeedhay halka markaas hadduu gacan ku dhigade maalinka gacan kuma dhigin hadduu ku dhigo aanu uga maaragtay labeeyeen marka waxay taasi ku tusinaysaa oo inuu ka faa'iideysanay guud ahaanba dagaalkaana aynu ka qaadanayna الرابط الإيماني أقوى من الرابط العصر xiriirka iimaanka markuu qofka qalbigiisa dago ee uu fariisto wax walba isaga ka xoog weyn
walad iyo waalidkii waxaa kala kaxeeyay waa diin iyo islaamnimo markuu cadow ilaahay noqday loo daynayo cadownimada in la oranayn waxa weeye waa inankayagii iyo waa reerkaygii iyo waa tolkay midnaba aan la oranayn waxa kale in qisada ka faa'iideysanna qodobka labaad ka faa'iideysanna waxa weeye dagaalka kan ah quwada macnawiga iimaaniga ah inay ka muhiimsatay quwada maadiga maanta dadka muslimiinta maalin ay ka tira badan yihiin ma jirto maalin ay ka hanti badan yihiin ma jirto maalin ay ka awood badan yihiin ciidan ahaan ma jirto maanta dawlado badan baaba xataa dawlada muslimiina baa nuclear leh hubka ugu sareeya dunida maanta la isugu hanjabo waa nuclear Soma maanta dawlada muslimiina baa leh haddana waxa laga yaabaa inay maaragtay la gumeeyay in badan oo kamid marka nuclear kala maqan nuclear-ka iimaaniga ah in la gaarsiiyo heerka saxaabadana ay joogeen iyo heerkii muslimiintu ku soo diriiri jireen ay ku soo dagaalami jireen oo dhinac walba in laga dhameystiro ah oo adduunyadan la jeclaanayo ee wax walba cabsida qofka ku ridaysan laga taga ayaa ka muhiimsan inaan dhisno alquwa almaadiya ayadoo alquwa almaadiya loo baahan yahay haddana waxa garab socoto muhiima waxtarkeedana la arkay alquwa aliimaaniya kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإذن الله إن بدن با إلهي وحلي واحد دعدي كوح ير إن أقرانشاء إلهي كوح وين ودي وحسبيدايسا أي كقاد كات كان صحابة صدح رب قل صورة قل ماها والله قادم بكري واي وابي قادم عربي بوي قادم كري واي صدح بقول باللقي كنن أو ديار سن أي صدح بقول مارتي إسكا نوع ماركتي مليشي إسكا صعود حتى هو بدن هيسن ayaa liqay waa la qaadan kari waayay laakiin iimaan baa ku jira wax weyn ayaa ku rakibnaa saxaabada marka iimaaniyaadka in la kordhiyo oo la ziyaadiyo bulshada laga dhiso ayaa muhiima qodobka u dambeeya qisada in ka faa'iideysanayna waxa weeye ama duulaankan inuu ka qaadanayna diinta tan ah iyo bulshada muslimka laba qodob bay u baahan yihiin kitaabun yahdi wa sayfun yahdi waxay u baahan tahay bulshada muslimku waxay u baahan yihiin kitaab ilaahay oo haga horto oo diina oo lagu dhaqo oo madaxiyo bajala isku maamulo oo buug gaar u ah oo waxa weeyaan ay ku kala baxaan oo cadaalad iyo wax walba ay ka helayaan wasayfu yahmi sayf ila lisay u baahan tayo waxa weeye geedka faraarihiisa de waa la isu duwaa marka qofka ictidaa ku sameeyay diintan ilaahay surtaaga muslimiinta ku soo xadgudbay ee gaala in laga ka horbeed la yiraahdo ayaa loo baahan markastoo ka horbeed ay yaraato oo meesha ka baxdana gunnimada soo baxdo waa la gumeynaya dadka muslimiinta maanta intay ugu gumaysi badan yihiin dadka muslimiinta ee ugu cagta hoosteeda galeen waa intay jihaadka ka tageen sharciga ah waayo nabiga sheegay wa taraktumul jihaad fi sabilillah هذا جهاد كإلهي كتكتان سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم شيء حتى ترجعوا إلى دينكم إلهي دل النماء يقول نمو يدن كرديا إلى دينتنا أدو الله بطانا تصح نقطانا لا يركضوا القادم ماي مركا واحد دل النماء هيستا ما لك لها الله آني ملا مدحوينها إنه قحنا إنه بدل كان كلا إنه آغن علاقات كما كان كلا إنه حوجين وعلى الله وحامدنا ما كما قصيصو إن دينتي الله بطا oo halkii lagu ogaa bulshada muslimka in lagu ogaado maanta bulshada muslimiinta ayaa muhiima oo loo baahan yahay ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaynaa bi asmaa'il husna wa sifaatihi al-ula maanta kale inagoo joogna maalin nasri in ilaahay muslimka nasri siiyo ilaahay muslimka nasri asiiyo bogooda ilaahay burcada isu mariyo iimaaniyaadkooda allah xoojiyo kufriga iyo ahlul kufriga ilaahay ka gacan saar إلهي سبحانه وتعالى وحن مكبرينا مسلمين تينو مدايو قلبك الله كم مدايو دولة هان الله هو مدايو دنيا هان الله هو مدايو إلهي وحن وديسنا نتاتك مسلمين تاي قالوا تنشرع سنة يسوع الله كسيداي الله كسيداي أمني من كان الله ينواتك عماشنا الله ينقاق